Halkani waa Cawaale Official Channel. Ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha. Ceebtii kooxda Barcelona xalay ka soo raacday kulankii Benfica. Kooxda Juventus oo guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Chelsea. Man United oo daqiiqadii ugu dambeeyay ka badbaaday barbardhac. Ronaldo oo rikoodh cusub dhigay muxuu yahay. Tababare Antonio Conte oo sheegay in aanu Thomas Tuchel garanayn sida looga faa'iideysto Romelu Lukaku. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guuldarro iyo bahdilaad xanuun badan kala kulantay ciyaartii labaad ee Champions League, waxaanay halis ugu jirtaa in xilli horeba ay ka hadho tartanka Champions League kana baxdo wareegga koowaad ee xirmooyinka. Barcelona oo ciyaartii hore Bayern Munich ay ku karbaashay 3-0, waxay isla natiijadaas oo kale u dhiibtay kooxda reer Portugal ee Benfica oo 3-0 kaga badisay kooxda Barcelona, jawaabna u siisay kooxdii Bayern oo intaa in le'eg kaga badisay kooxda Barcelona. Barcelona ayaa taariikh xun sameyneysa kadib markii labadii ciyaarood ugu horeeyay Champions League gurbida laga badiyay. Kulankii xalay ka dhacay masraxa riyada Old Trafford oo indhaha caalamka soo jiitay ayaa ahaa kulan aad xiise iyo xamaasad gaar ah u watay, kadib markii kooxda Villarreal haafkii dambe markii lagu soo noqday daqiiqadii 53aad ay shabaqa booqatay, kaasoo u dhaliyay ciyaaryahankooda Alzer. Ayaa kooxda Man United ayaa iyaduna sameysay dardar ay la imanaysa inay kooxda in lala timaado barbaro, taasoo uu kubaddu soo qaabiyay Bruno Fernandes oo gacanta ka geliyay Alex Telles oo toogtay gool qurux badan shabaqa ugu taabtay daqiiqadii 60aad, kaasoo soo nooliyay rajadii Man United ah inay isku daydo in ay guul la timaado, taasoo sameysay dhaqdhaqaaqyo badan isku dayday halka ayna ka yareysan kooxda Villarreal iyaduna dooneysay inay la timaado badiska. Kooxda Man United ayaa daqiiqadii 94aad ayaa waxa uu saxay xiddigooda Cristiano Ronaldo oo shabaqa la saaxiib noqday ayaa goolkii badiska u dhaliyay, kaasoo gebi ahaanba jawiga ciyaarta isbedeshay oo dhammaan taageerayaasha Old Trafford ay jiif iyo joogba u diiday, kaasoo guushii Man United ee xilligii dahabiga ay la timid daqiiqadii 94aad, taasoo lasoo xasuustay xilligii la odhan jiray intay ciyaartu dhammaanayso weli Man United kama badin ee loo yaqaanay Fergie Time. Taariikhdu ma is qori doontaa ama waxaa bilaabmi doona waqtigii la yiraahdo All Time. Juventus ayaa gurigeeda ku garaacday Chelsea kulankii labaad ee wareegga gurbida Champions League iyadoo uga mahadcelisay Chiesa goolka uu ku galay taariikhda tartanka Champions uu ka dhaliyay kooxda Blues qaybtii labaad ciyaarta. Kadib ciyaarta ayaa lagu caajisay oo ay soo bandhigeen labada kooxood qaybtii hore ciyaar caajis ah. Ugu dambeynna ciyaartu waxay ku dhamaatay 1-0. Kooxda Chelsea oo weli ku dhiban markay booqato kooxaha Talyaaniga ilaa xataa la'aan aan ka soo gaarin guul, taasoo ka dhigaysa xalay in markii afraad laga soo badiyo ay Talyaaniga booqato, taasoo Juve oo 2 jeer iyadu ka badisay halka Roma iyo Inter iyaduna sidaas oo kale ay ka badiyeen. Ronaldo ayaa loo diiwaangeliyay rikoodh cusub kulankii xalay, isagoo saftay kulankiisii 178aad ee Champions League, taasoo ciyaartii hore la mid noqday Iker Casillas isaguna saftay 177 ee Champions League, taasoo ka dhigaysa xiddiga ugu safashada badan tartankan u noqday Cristiano kadib safashadii xalay, waana ciyaaryahanka goolasha ugu badan ka dhaliyay tartankan Champions League, waana ciyaaryahanka goolasha ugu badan caawiyay tartanka Champions League, waana ciyaaryahanka kaliya marka daqiiqada 90aad ay dhaafto
dhaliyay goolasha ugu badan, taasoo dhaliyay 12 gool, halka ciyaaryahanka ku xiga uu yahay Messi oo dhaliyay 6 gool. Sidaa daraadeed, waxaa sababta loogu magacaabo Mr Champions League, sababtoo wax kasta oo Champions League ah ayuu wuxuu ku qoray magaciisa. Ronaldo ayaa fariin u diray saaxiibkiisa Rio Ferdinand oo ahayd: "Ma aanan u ciyaarin si fiican, balse waxaan ogaa inaan dhalin doono gool." Sidaas ayay u dhignayd fariinta uu soo diray Ronaldo saaxiibkiisii hore Rio Ferdinand, siduu xaqiijiyay tababare Antonio Conte ayaa aaminsan in Chelsea buuxda uga faa'iideysan karin qaab ciyaareedka Lukaku, isla markaana uusan tababare Thomas Tuchel qaabkiisa ugu fiican u ciyaarsiin karin, ayuu yidhi Conte oo ka hadlaya Lukaku ayaa yidhi: "Lukaku waqti hore ayuu soo sameeyay qaab ciyaareed fiican, isla markaana qaab ciyaareed fiican ayuu ku jiraa. Waxaan filayaa inuu joogteyn doono ilaa uu waqtiga horumarkiisa sii sameeyo ilaa maalintuu ka fadhiisanayo," ayuu yidhi Antonio Conte. Saaxiibayaal, barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu nooga eegay. Asxaabta nagu cusub, fadlan subscribe noo saar. Asxaabtii hore noola joogtayna like iyo share noogu dira. Mahadsanideen.